Mr. Minister of the Elite, please come forward. The God Crown Diamond. Doctor, one more award for him, Executive Triple Crown Diamond. Please put your hands together. There are 2 recognitions achieved by Minister of the Elite. So much for giving me your ears. I'm really excited to be here today to deliver the message about Mr. Abdi Ali on his behalf. Thank you again and good morning. As you already have heard, my name is Munassar, but I'm going to give you the history about Mr. Abdi Ali. Now, he wanted to share with his close friends, he wanted to share with his family members and at large, his community. During the process of sharing, Mr. Abdi Ali faced many challenges. He had many problems. People misunderstood him. They insulted him, but he has never given up. He kept going forward, regardless of the situation he was. He kept moving forward. Now, kindly, I would like to conclude saying this to people, perhaps those who have joined recently, those who are in the same situation as Mr. Abdi Ali had been 13 years ago, that we should not give up. You should keep moving forward. Thank you. Thank you so much, the Crown Ambassador and his proud son for the translation. Thank you so much, Mr. Abdi Ali. Please put your hands together. Please give it down for the Crown Ambassador, Mr. Abdi Ali and Minister Abdi Ali. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo xanuunka babaasiirka waxaan rabaa inaan ka hadlo waa maxay babaasiir maxaa keena babaasiirka maxaa lagu gartaa qofka inuu babaasiir qabo iyo in kale iyo maxaa lagu daweeyaa afartaas su'aalood baan rabaa inaan soo koobo hadaba ila soco waa maxay babaasiir waxaa jiro xidido Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qofka u sameeyay xididadaasoo rectanka amaba inta dambe ee dabada qofka uu ku leeyahay xididadaas marka qofka waxa ay ka saacideeyaan in qofka si caadi ah uu u saxaro si natural ah xididadaas marka waxa ay yeeshaan caabuq bay yeeshaan ama way bararaan markay bararaan ba waxa loo yaqaana babaasiir hadaba babaasiirka maxaa keena waa su'aasheena labaad babaasiirka waxa keena waxyaabo fara badan midda ugu horeyso waxa ay tahay fadhiga faraha badan qofka oo xafiis ka shaqeynayo maanta in kursi buu ku fadhinaya waa keenta sidoo kale waxa keena qofka oo gaari wadaayo kaleeto ama taraag ama taxi fadhiga faraha badan waa uu keena sidoo kale hooyo ama gabar guri joogto ah oo guriga joogto iyadana macna fadhigaas faraha badan babaasiirka waa uu keena sidoo kale babaasiirka waxa keena caloosha qofka oo istaagta iyadana waa ay keenta qofku wax buu cunayaa laakiin calooshiisa waxba kama soconayaan amaba Soomaalida siday u badan tahay cunto isu dheeli tiran ma cunno cuntooyinka baalka leh cuntooyinka vegetables-ka cuntooyinka oo sida ay cabbage-ka iyo waxyaabahaas khudaarta ah iyo fruit-ka ah ma cunno marka waxyaabahaas oo saxanka cuntada ka maqan dheelitirnaanta cuntada ka maqan iyadana waa ay keentaa sidoo kale walaalayaal waxa keena xididada dambe oo qofka ay ku yaraadaan nafaqada iyaga naftirkooda nafaqada ku yaraanaya saas markaas waxay noqonayaan daciifnimadaasna waa ay keentaa babaasiirka sidoo kale walaalayaal waxa keena obesity-ga iyo cayilka waa ay keenaan babaasiirka sidoo kale waxa keena
uurka markii gabadh ay uur yeelato kale babaasiir waa uu ku dhacaa mararka qaarkood haddaba hadda intaas uga soo baxna maxaa babaasiirka keenna waxaanu u gudbeynaa insha Allah tacaala maxaa lagu gartaa babaasiirka waxaa lagu gartaa waxyaabo fara badan noocyo kalena uu u kala baxaa nooca koobaad waxay tahay inuu qofka nabar xagga dambe uga soo saaro noocaas markuu qofka leeyahay waa self explanatory waa babaasiir waa caadi laakiin waxaa jira nooc qarsoon oo qofka ku qarsoon noocaas baan rabaa insha Allah tacaala inaan dhowr ka sheego symptoms uu leeyahay waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid ah in qofka garbaha ay xanuunaan labadaas garbood baa qofka xanuunaya waa midda koobaad midda labaad waxaa xanuuna mirgiyada iyadana waa ay xanuunayaan qofka qoorta xataa ma leexin karo qoorta inuu leexiyo ayaa dhib ku ah sidoo kale wuxuu leeyahay qofka adimadiisa labadiisa lugood iyo labadiisa gacmood oo kululaada kuleel buu leeyahay sidoo kale waxa uu leeyahay in qofka uu ka dhidido lugaha iyo gacmaha inuu ka dhidido iyagana waa uu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay kabuubyo leeyahay waxaa kaloo lagu gartaa babaasiirka walaalayaal qofka oo calooshiisa ay taagan tahay waxbuu cunayaa laakiin saxaradiisa ma socoto oo musqusha si fiican uma aado ama isbuuciiba hal mar ama laba mar bis uu musqusha aada iyadana waa lagu gartaa sidoo kale walaalayaal waxaa lagu gartaa waxa ay tahay qofka markuu musqusha aado inuu saxarada ku dhibtoodo oo ii sheeg dhiig ama qaarkood saxarada uu soo raaco cuncun inuu soo raaco dheecaan inuu soo raaco inuu nabar ka dareemo inuu xagga dambe uga yaalo inuu fin uu isku arko oo kaleeto waxyaabahaas oo kaleetana waa lagu gartaa sidoo kale waxaa lagu gartaa qofka oo shubanka isagana waa lagu gartaa haddaba su-aasheena u dambeysa haddaan u gudbo oo ah maxaa lagu daweeyaa sidii hore waagi hore babaasiirka waa la qali jiray laakiin haddeertaan waxaa yimid dawooyin oo dabiici ah haddana casriyeysan dawooyinkaasaana lagu daweeyaa oo dhowr nooc kale ah waxaadna ka helaysaan xarumaheena Al-Huda Herbal Medicine soo dhawaada ka caban jiray madaxa iyo labada madaxa oo 24 hours ku go'an imika laakiin waa fiicanahay ma sha Allah dhakhtarkii markaan la xiriiray dawada uu siiyay waxaanu siiyay dawadan babaasiirta dawadii markaan cunay madaxii alxamdulillah waan ka ladnaaday waan fiicanahay Mm-hmm.